nadiira nayruus inoo ammaan walaalo gabadhaas ilaahay baa kugu dhaashay caawa haddii mala ku yimaado oo naftaba kaa qaado oo tii alle ku timaado ilaah maanta intaa leeg iyo caloosha in saa xal isku hay diinta ma qabto najma nashaad waa dirtay raganimo waa amaantay qofta la yiraahdo maxaa la oran jiray yurub geeyo waa gacan bidixaysay alxamdulillah waa amaantay waa heshiiseen saacadiya siman shiidka ogeed baa ku dhufatay waa heshiiseen nadiira nayruus walaasha weeye gabar Soomaaliyeed weeye muqdisho kula joogtaa nacala shiidaan ku yaale waxba u noqon mayside amaan waxba u dhiman maysid buruujkaaga ku soo inoo amaan gurigeena qadxumo okiyaab oo qadka noloshay gabar ka qalbi adag kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel walba dunida afeeda ka joogtaan halka ay daawanaysan waa channelka Deeqad official hadii ay daawad markii kugu horeyso muuqaalkii ku soo gaaro waxa ka codsanayna channelka ay subscribe gareyso muuqaalkana ay la gareyso videogana aad si share gareyso waxa la yiri ceeb loo midinto ceeb waa loo suuxaa ceeb loo midintay ceeb waa loo suuxaa ayaa lahay suuxitaankana ma garanaa qaabka loo suuxo iyo qaabkii ay tahayba TikTok-gii maalmihii ugu dambeysay lagu kaxsanaa oo lacag laga shaqeeyaa iyo dad baa lagu dhacaa la dhahayay wuxuu fashilay ceebo badan ama waxyaabo badan oo markaa aan ahayn munaasab in amar bartas la soo keeno balse laakiin intaan muuqaalka halkan ay idinku hay barnaamijka xasaasadiisa wato iyo xamaasadiisa wato hadalhaynta baraha bulshada intaan halkan idinku soo bandhigin waxaa rabaa hal iyo laba inaan dhaho dadka gamekaas ciyaaraya dadka lacagta ku qasaarinayo walaal adiga markii gifti qof u dirisid kaas oo lacag ku gadaysid uu yaraan halkii gifti lacagta lagu gadayo ee tahay $5 maantay meeqa qof oo masaakiina ayaa jiraan oo $5 u baahan misna aasin kartaa oo ina ku sadaqaysan kartaa markii aad ku sadaqaysatina ducaa iyo markaa aad ka helaysaa in markaa ay ku duceeyaan oo halkaasna ajir aad u badan aad ka shaqaysid markii aad siinaysid qof aan u baahnayn degan guri qurux badan ku nolol hay dadna ay qaxooti yihiin oo noloshoodii ay hooseyso guryahooda xataa qaarkood ay biyo iyo adduunyo galayaan qaarkood aan waxay cunan aan haysanin qaarkood ay dhibaato haysato taas markii laga soo gado familkaaga macnaha haddii xataa hooyada aabaha ay ladan yihiin qaraabadaada maanta ma jirto qof walba qaraabo leedahay ehel ay leedahay sukay ay leedahay sadaqada waxa la markii sadaqa aad bixinaysid si dadkaaga baahan duruufta ay haysato ya waa sadaqada markaa bixinaysid ama sakadoo kale markaa saka bixinaysid waxaa siisaa la dadkaaga baahan marka gift u dirtid qof gurigiisa joogo raaxaysanaya nolol qurux badan ku nool ilaahay u siyaadiyay giftina u gudid lacagtaada ku qasaarisid halka habeenba $300 aad qasaarisid heblaaya life soo noqotay u dir hebel life soo noqday u dir waxa kaaga qiimo badan ina macnaha waalidkaaga ayeeydaada abootadaada eedadaada labaadkaada aabaha awgiis aabaha ayeedis hooyada ayeedad jiiraanka qaraabada ehelka ina lacagtaada u dirsadid ayaa ku wanaagsan taas oo markaa dadkaasna u baahan yihiin oo ay anfici doonto Soomaaliya dad badan waxa jiraan qaxootiyaasha ku nool oo macnaha rafaadsan haysato duruufo dadkaas ku sadaqay arkaysa maalinta qiyaamana way ku imaanaysaa iyadoo sadaqadeedii baxsatay ayaa ku abaalmaraysaa maanta markii $50 ku sadaqaysid qof u baahan isla maantaasna mudan isla markaas meel kale tuu ilaahay ka siinaya kontakaaga xataa way ku soo laabanaysaa ilaahay meel kale ka soo saaqay waxa la wax bixi waxa ku soo galaan laakiin hadii aad dad guryahoodii joogo baashaalaya raaxaysanaya lacagtaadii ku qasaarisid oo gifta ugu dirtid oo maantina aad ku ogeeno biraha jidkaaga hormaada xataa aan isxaankaaga haynin hal mid oo kaaga hayaan aysan jirin aasiisid dee waa dhibaato aad u weyn marka waxa ku leeyahay lacagtaada ku bixi qof u baahan si lacagtaan aad bixinaysid oo ina life dad soo kalay baashaalaya raaxaysanaya aad siinaysid si qof u baahan dunka marka qof u baahan asiisid dadkaana daawashada aad daawanaysid badii lacag ku helaan alxamdulillah ay naftirkooda intaas ayaa jiro taa markii aad ka soo tago gamekan dadka ciyaaraya waxyaabo badan oo fashilaad ah ayaa jiraan hadda sida arkaysaan muuqaalkan hadda aad ku daawanaysaan qaybta agteeda waa kan hadda haatana u jeedid waa Nadiir Shaadi Sharaf oo leeyahay ama Nadiir Nayruus waa jalas way ka xuntaa horumarkeeda ka xuntahay nolosheeda ka xuntahay maadaama Nadiir Nayruus ay tahay qof faraxsan nolol ku nool samaystay nolol qurux badan taas heer sare haatan ay marayso way ka xuntaa nolosheeda ka xuntahay
shaadiye waa qof aad u xun xataa qof qadii waxay qabtid shalay waxay arkay buuqaalo hore waxaa jireen hadda ka hor ay maray kasoo hadashay leedahay shaadi sharaf gabar walaashay dhadiir nayrus waa gabar walaashay cabdifitaaxna isku keena dirin waxyaalo lamid ay dhehaysa arkaa maanta in xujada lagu xujiyay bisa waxa la dhahay amaan kumanaan istagaaleen amaantay laakiin waxay nadiir nayrus oo xunta waxa waaye maama hore waxay qof walba qof kale to walaalkiis markuu horumar gaaro ama nolol qurux badan oo sameystay uu ka xun yahay taasoo markaas gooskreenaysa noloshiisas ay diidan tahay ay ka xun tahay hadda nadiira amaan uma baahana uma baahana in la amaano ma baahana in macnaha la bubuuniyo laakiin waxaa cadaysay dee inaa nolosheeda ka xun tahay كذا أركيسان nolol qurux badan ay ku nooshaa maanta heerka ay taagan tahay ama aad heerka ay taagan tahay xataa yaa ayada lay ku gaarsiisay shaadiya yaqiin nadiir koor itaqiin ma jirto shaadiya ma yaqiin nadiir koor ma garanayna nadiir koor shaadiya marka barnaay nadiir nayrus ku bartay qofka soo saaray ayada qofkeesa markii la soo qaaday jirtay libiska ka saxay maxaa la nolosha hay ayaan dhaxda saxtay guriga dhan guriga diseen guriga nadiir shaadi sharaf guriga qurux badan nadiir nayrus guriga qurux badan soo bandhigtay oo la baxay quality oo bismillaahir rahmaanir reemagaalnimada waa loo dhashaa reemagaalnimada la sheegay wax waa loo dhashaa maahan wax la iska keeno guriga way ka masirtay shaadiye sidii nadiiro guriga u sharaxatay oo soo sharaxatay hadal markii lahaana tii waa iska ogtiin nadiirada qof qabo markaas si waa aragnimo u hadlaysaa maanta dii lilaa booska shaadiyada la dhahay nadiiro amaan nadiirada shaadiye amaan dii lilaa nadiirus deena waqti iska galuma leed muu maleynayo laakiin haatin gamekan dad badan uu shiliyay dad badan ayuu keenay uqdaduna ma fiicno waxa la hayd uqdadu ma wanaagsan labada qofood markay uqdad isku qabaan ama noloshooda kaleeto kala xanaqsan yihiin oo saddex bir ka badan laba qofood muslimiinta ah in uqdad isku qabaan ma wanaagsan shiino culay oo ah oday Soomaaliyeed oo markaa ka dhaliyo goolka ayaa wuxuu u saaray heestii markaa ay qaadayeen ma ku maqlo qadka wuu dansan yahay ma ku maqlo qadka ka xun ay gashatay no way ma gaarisid ku leeyahay inaa gaartidna neefa meel nadiira habeen marteen de maalin xataa daadheedi waa kusoo lugeynaya oo lugta dhag asina dhad ma gaarisid asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta mudan ma fiicna jalasnimada ma fiicna xaasinimada ma fiicna maxaa la dhihi jiray uqdada ma fiicno waxaa wanaagsan in markaa ahaadid qof anyway wax walba markaa uu tabanayo xataa dee waqtida aana cadrimin waxaa jiraan niman inaagis furay oo markii isfurayeen ayagoo isku factirinaya oo hoogay bacay halkaas ka jirto markaasna laleeyahay heblaayo magaciisa halkan ku qor heblaayo magaceeda inta ku qor hebel magaciisa halkan ku qor markaasna inay naf iska dayaan diya igu qorayeen walow gameka oo fashil uu yahay halaasna waa halay u soo shaqo tageen oo macnaha dadkaan aqliga lahayn oo dadkoodii u baahan hata qaarkood waxaa jiraan aqaano oo beesha arkay gafti gadayaan oo familkoodiina duruufay ay haysato rafaadsan ayakana gafti markaa dad u gadayaan war gaftigaasi waxaas janno ku geli maysaan waalidkiina inaad lacagta siisaan oo ka duceystaan oo nii duceeyo ay dhahdaan oo nii la duceeyo adduunku qof duceysan ayaa heer gaara qof duceysan ayaa horumar sameeya qof duceysan ayaa noloshiisa ku tilaabsado oo nolol markaa sareyso taga adinkana sidaasoo kaleeto duceysta lacagta familkan u dira inta dad game ku jiro oo hal maalin xataa sheer aad idin sameynaynin qarashkiina ku bixi laheedeen samaha